hadda ayaga murtadiina gabdhaha ka keena barga ayaga cararay murtada ayaga gabdhuha ka soo hareen gabdhahana ka keena sida maanta loogu abtiriyay oo ilaa 7 loo gaarsiiyay aan loo gaarsiin oo odayaasha halkaan oo ay yihiin odayaal dhaqanka iyo dadkaba kala yaqaan wasiiru dawlaha wasaaradda gaashaandhigga oo runtii asna nin dhalinyaro ah oo halganka qaybtiisa uga jira gudoomiyaha gobolka Makaraan oo runtii asaguna mudan in si gaar loo amaano taliyaha guutada afraad sargaal aan raba in aan meediyahana baro adinkana idin baro oo ageesi ka soo dagaalamay gobolka Hiiraan kana soo dagaalamay shabeellada dhexe haddana ciidamada in la joogo kamid ah Xasan Tuure dhammaan saraakiisha xeeralaaliyaha dhammaan saraakiisha oo dhan odayaasha dhaqanka culamaa u diinka ragga hubka haysta oo maanta hor taagan oo ciidanka deegaanka ah ragga kale oo ka dambeeya dhamaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa soo koobahaya adinka wax yar baan idin leeyahay dhamaantiin hal mid guud baan leeyahay meesha anuu ka imid waxa oo deegaanka aan ka imid asal ahaan waa deegaan dagaal jooga nin baa qori haysta waxa la og yahay ninkaas qoriga inuu si fiican ugu dagaalamo aqoon cadawga markii loo yimaado uu xoogaa farakanax leeyahay mid la yaqaan qori haysta yimaada aan qori wadan ragga yaqaana inta qoriga ka qaadaan bay ninka ragga u dhiibaan ragga nin qoriga laga qaadayaa ma ku jira yaa ma ku filantiin qoriyihiina mise waa la idinka qaadaa ragga gadaala loo dhiibayaa ma hubtaan yaa maya nin aan ku filayn baan arkaa ninkii qorigiisa ku filan waxaan ka rabaa dagaal baa la gelayaa qori kala soo wata inuu ila yimaado warkaas macadiya ninkaan qori kala ila imaan qorigiisa kuma filan waa laga qaadaa raggaas gadaalaan u dhiibaa midaas waa mid raggii halkaan ka tagay ragaa xoolo u haya ama lacag u haya ama ari u hayo aan cuni karin ayaga ka baqay aniga isiye barga adinku waa ka baqaydaana ma cuni kartaana ayaga u haysaan barga anaga ciidamada lagu soo wareejiya ya moogashi sidaas ya ninkii walax dhal u hayo oo aan cuni karin oo ayaga ka baqahayo ciidamadaana diyaar u ah ku soo wareeji taasna intaasaan uga baxayaa waxaan rabaa inaan idin sheegno habeen hore halkaas idinka koraysa waxa ka dhacay waa la socotaan soo maahan dad dariskiina oo sidaan oo kale macawislaya hubkii bay ka furteen inaad ka war hesheenna waa laga yaabaa waana rag markii hore aan la diyaarinay markii jugtu dhacday meesha ku yaacay oo ka qanimaystay inaad marka qorigiina meelahan la joogtaan lama rabo waxaa la rabaa in aad la socotaan oo meesha cadawgu jira la aadaan ciidamaduna waa idin hor socdaan waana idin garab socdaan waxaa soo hara hadda gudoomiyaha gobolka su'aal bay idin weydiiyay raggii meeshaan ku dhintay ma deegaanka u dhasheen mise Soomaaliba iyo kuwa joogaba Soomaali maahan waxay u dagaalamayaan soo dhulka Soomaaliyeed maahan soo adinka inay idin xoreeyaan maahan adinka maxaa idin diidahay inaad adinkuna Soomaalinimo ku dagaalantaan oo kuwa kale la gumaysta ka xoreysaan ma wax idin diidahay jira sheeka aan la hubin baa dhagtaydu maqashay ree hebel baa soodintaan leh ilaa ay hor qaadaan ma galayno ree hebel baa soodintaan leh waxaas ma jiraan soodin laga bilaabo saacadan u kala xiran Soomaaliya ma jirto shabaab baan meeshu joog ugu tagaynaa ninkii yiraahdo soodintaan la ima soo dhaafi karo shabaab buu rabaa gadaal inuu gashado wartaas ma taa soodintiina ma ogashiin ragga ceelbarfina yimaadaan ma ogashiin ragga maxaasina yimaadaan yaa soo ma ogolidin adinkana sidaas oo kale soodin ma lihidin waad soconaysaan calankaas inaan mug damba la furin ilaa nimanku hadday soo dhawaadaan waa la furaya soo maaha
inaan mugdan balla furin ballan ma taha yaa oo gabdhuhu say berga ula soo bannaan baxeen ay mar walba saa ula soo bannaan baxaan waa mahadsantihiin taliyii xoogga iyo wasiiru dawlihii iyo dhammaan saraakiisha halkaan joogto oo dhan waxaan ballan qaadaynaa cadawgaas inaana ka harin haddii ilaahay yidhaahdo inaysan idinku soo laabanayn waxaa soo hara markii halkaan ay yimaadeen raggii xamar u cararay sida sheekada nagu ahayo oo ayagu ay cayriyeen waxay yidhaahdeen gabdhahooda waa murtad keena gabadha ka keena